Jahliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa walaac xooggan ka muujiyay cudurka safarka ee COVID-19 ee cabsida ba'an ku beeray wadamada caalamka iyo kuwa qaaradda Geeska Afrika. Cudurkan safarka ee COVID-19 ayaa sanadkii dhammaaday saameyn ba'an ku reebay wadamada caalamka iyo guud ahaan kuwa qaaradda Geeska Afrika. hase yeeshee cudurkani COVID-19 ayaa noqday cudurka ugu saameynta badan leh sanadkani 2020 ee haatan waqti xaadirkan lagu guda jirana noqday mid soo laba kacleeyay iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxay yiraahdeen magacaygu Cabdisalaam Khaliif Diiriye kuna nool magaalada South Africa qaas ahaan Pretoria kana mida ganacsatada Soomaaliyeed ee Pretoria ka shaqeysata 2020gii dhalanteed buu nagu ahaa haddaan Soomaalida nahay maynaan aaminsanayn wax corona la yiraahdo inuu jiro dadku maysan aaminsanayn wax keera maysan siinaynin laakiin markuu soo laba kacleeyay sanadkan 2020 uu soo laba kacleeyay dadkii waxay qaateen wacyigelin badan marka loo sameeyay iyo wax u sheeg badan iyo diintu waxay ka qabto in xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam markii uu Madiina daacuunku ku dhacay oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam qofka Madiina gudaheeda ku jira huna kama bixi karo qof dabadeeda jooga huna ma soo gali karo حديث كان مركي علماء وعيقلين كسمايين يدك عقاشة ويقاتين دتكو ماسكي وده قاتين سنة تيسرة حرتين دكان مدى سيدا سوكاليتو دتك كسم كا سنة تيسرة لومريا سنة وحلي هذا ماسك حركة قف عن ماسك حرنين دكان كجودها وقولي كرو دبدا لو عاوية مقعي وحوي أنا وحلا مقع جالد ريل بريتوريا مقعي عبد الله محمد قال نالست وحلي عن بالبال halka waxaan rabaa inaan ku soo jeediyo arrimo ka socda adduunka qaasatan South Africa qaasatan meesha aan deganaa Pretoria cudurkan la yiraahdo COVID-19 saameyn aad badan ayuu nagu sameeyay xoog leh xagga ganacsiga xagga dhaqan socodka xagga dhaqaaqa xagga marka arrimo badan ayuu mataqaana ayuu saameynteeda ay leedahay marka waxaan ka baranay 10 badan oo la soo koobi karo ayaan ka baranay waxa waaye sida aad ka warqabtiin baalkan dhibaatada uu leeyahay adduunka dhan ayuu ka qaylisiyay wadankeena qaasatan Soomaaliya meel walba marka anagana dhibaatada adduunka uu ku hayo ayaan qayb ka nahay ayuu anaga nagu sameeyay dibkiisa marka waxa loo baahan yahay bulshada Soomaaliyeed in aan fariimaha la bixinayo iyo arrimaha digniinta la dhiibay inaan qayb ka naqano magacaygu waa Cabdiraxmaan Cali Barre oo jooga dalka Koonfur Afrika qaasatan caasimada dalka Koonfur Afrika ee Pretoria waxaan halkan fariin aan uga diraa ummadda Soomaaliyeed oo maalmahan oo aad fara badan ku hayo cudurka COVID-19 caabuqa oo adduunka halakeeyay runtii experience badan aan ka helnay haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed ama jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika waxaan markaa dhibaatada ugu badneed kala kulannay sharcigaas oo markii hore cusbay oo instructionka iyo tilmaamaha dawladda caafimaadka ay bixido oo markii hore aan la raacin iyo dadka oo dhibaatooyin badan kala kulmay waxa kamid ah ganacsigiyo markii hore la aafeeyay oo aad iyo naaqis iyo dhibaato ku timaaday oo xilliyada qaar la xadiday waqtiyada qaarna aan la furi karin waqtiyada dawladda ugu tala gashay oo jirtay oo la xiri jiray halkaas dhibaata maaragtay ganacsiga ka soo gaartay waxa kale oo ugu darneed qofka markuu subaxdii soo baxayo kala afxirka ama maskiga aaladda loo yaqaano looga hortago caabuqa COVID-19 laftigiisu dhibaatooyin badan laga kulmay maadaama wax cusub oo caalamka ku cusub ay ahayd intaas oo dhan dhibaatooyinka iyo xilliga waqtiga xaafadda tagaydo xilliga ganacsiga xiraydo waxyaabo aad u dhibaato badan oo halakeeyay ahayd oo aad dhibaato nagu ahay laakiin waxaan uga faa'iidnay tilmaamihii dawladdu ay bixiday waa ku faa'iidnay inkastoo markii hore dhibaato ay nagu ahayd oo sharci cusub xaalado cusub dhibaato cusub ay ahayd haddana waxay keentay in ay yaraato ummadda Soomaaliyeed oo effectiga cudurka uu gaarsiiyay aad u yaraatay markii laga soo tago xagga khasaaraha ganacsiga laakiin naftiya ku badbaaday COVID-19 waxaan ka baranay waxyaabo fara badan oo la soo koobi karin marka koow anaga waa iska sahalsanaynay Soomaali haddaan nahay sida shuruuciyada wadankan aan ku noolnahay ay dawladda soo dejisay cudurkan markuu bilowday sanadkii hore waa iska sahalsanaynay laakiin markii dambe waan la qabsanay oo waan aragnay waxaan inuu wax xaqiiqo yahay oo cudur jira yahay
oo qofka si sahal ku qaadi karo haddana u sii gudbin karo familkiisa dadka uu la nool yahay sida caruurtiisa xaaskiisa ama waalidiintiisa marka hadda waxaa arkaysaa waa la qabsanay anaga marka tagtid meelaha sida adeegyada dawladda laga bixiyo ama bangiyada ama meel aad ka soo meelaha suuqyada oo aad alaabaha quutul daruuriga ama dharka aad ka soo gadanaysid dukaan ma gali kartid adoo aan wadanin bahalkan maskarka wajiga lagu xirta af xirkan adoo wadanin laguma ogolaanayo meesha mid kale adoo gacan ma marsanin sanitizer wax la dhaho ma galaysid waxyaabo badan iska jiro oo cudurkan shuruudo badan oo la soo rogay oo dawladda ama dadka hadda ay la qabsadeen COVID-19 horta ilaahay baa mahad iska laho horta cashiro badan baa laga bartay adduunkan inta joogto cashiro baad baranaysaa maalin kasta wax cusub baa kugu soo kordhi waxyaalihii cusbaan ugu soo kordhismay unbay kamid ahayd insha Allah ma taqaanay waxaan cayimi doonaa qodobo 2 ama 3 oon ka baranay horta waxaan ka baranay in ninkii ma taqaanaa adiga kula dhashay aad salaami karin oo haddaad salaanto uu ka cararo ku leeyahay gacanta saa igu taag waxaan kaloo ka baranay inaad sanka xirnaatid oo ma taqaanaa maanta kulli neefta kugu dhaganaato taasna waa tu inagu cusub bay ahayd marka waxaan kaloo ka baranay meelaha bulshada iskugu timaado inaad saa doonto aad ma taqaanaa ugu tasarrufi kar waagi hore maqaayadaha waan iska gali jirnay waagi hore bangiyada waan iska gali jirnay meelaha ma taqaanaa shopping yashan waan iska gali jirnay laakiin hadda waa inaad ku socotaa tilaabada aad qaadayso waa inaad la socotaa waxa laga yaabaa qofka ka horeeyo ama madow haduu yahay ama cadaan yahay ama Soomaali kale yahay ama ajnabi kale yahay xitaa marka uu dhawaad inuu gadaal ku soo firay uu shaki ma hindison kartid dadka dhaxis ma hindison kartid waa laga shakinba dib bal uu soo eegi ma qufici kartid marka waa mucjiso Ilaahay korka keenay waxaan Ilaahay uga bareenaa insha Allah ta'ala ummadda islaamka iyo qof walba oo ma taqaanaa bini'aadan inuu Ilaahay ka dulqaado noloshana si hore ay noogu soo noqoto oo caadiga ahayd hadda waxa laga yaabaa hadda masaajidka xitaa ma aadi kartid masaajidka xitaa waa la cayimo konton qof lagu leeyahay ku tukato konton qof 2 daqiiqo gudaha konton qof baa soo gali waxa kale sameey hadda sharciyo way naga xiriiriyaan asaga diisa u xiriiriyay marka insha Allah waxaan Ilaahay uga bareenaa inuu waxa naga dulqaado aan rajaynayna in Ilaahay ma taqaanaa khayr noogu bedelo inta dhimatayna Ilaahay u naxariisto oo covid iyo ma taqaanaa si kale u dhimatayba Cabdi Kariin Ciise Cabdullaahi Cabdi Kariim Staji